هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أيها القرآن الكريم إلهي النبو أنفعه كوي ماركتي كو أمر قاتل الله نقدر وكو عمل فلا وحشيق نسو جيدين إلهي أجر حسن الله كسيو وحنتوني إن شاء الله هدي لهدمو إنا إذن شيغو إن أنا سو جيدين دونو أما هالكان كسو بديك دونو برنامج شقار وكسو بسن دكتور محمد عبدي كبوسي وحانا كور بحين دونا برنامج كاس أما كهالي دونا مستر أحمد محمد لقمان قدوميها قولها صلاة بحين تارير ودقيق الإسلام مركزنا أهان جري أما كشقين جري أما أها إكيس وزارة دالحيس كأي صوماليا برنامج كاس waxaa idin soo habeeyay ama isku soo dibaraday ustaad Abdulqaadir Abubakar Sheekh ku soo dhawaada mahadsanidin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxaan rabaa halkan inaan message u gudbiyo walaalaha Somaliland. Walaalayaal Soomaaliya iyo Somaliland waa laba dal oo walaala ama ha kala go'een ama ha wada jireen mar walbaba isma horto ayaanu nahay. waxaan rabaa inaan halkan idinku soo gudbiyo xasuus iyo taariikh waagii aan dowladda ahayn madaxdii dalka soo maamushay soo agaasintay siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin iyo ciidan intaba dad qiimo aad u qiimo badan ee Somaliland ka mid ah ayaa dalka soo maamuli jiray soo xukumi jiray halkaas markaa in doora ayaga ka mid ah aanu soo wada shaqaynay madaxii noqdeen shaqaala wada noqonay agaasimayaal wada noqonay mas-uul wada noqonay waxbarasho wada tagnay intaasiba qalbigayga kama goyn. walaalayaal waxaan rabaa dadka quality-ga leh ee aad ku leedihiin dalka Somaliland oo maanta idinla jooga oo Soomaaliya ka soo shaqeeyay shakhsi ka mid ah ayaan rabaa inaan ka faaloodo haddii aad ii ogolaataan. walaalayaal sanadka markuu ahaa 1987 ayaan anigu dalka Austria u tegay waxbarasho anoo ka tirsanaa wasaaraddii dalxiiska iyo hoteelada. dalxiiska waxaan ku biiray anoo kureyeraa oo high schoolka markaa dhiganayay. markaan tegay dalka Austria waxaan baranayay TM Tourism Management. anoo dalka ka maqan ayaa isbedel wasaaraddii ku dhacay. wasiiradii waad ogtihiin mar walba waa la kala bedeli jiray.
markaan dalkii ku soo noqday waxaan la kulmay maamul cusub oo wasaaraddii yeelatay, wasiir cusub, wasiir ku-xigeen cusub. anugu markaan soo noqday hore shaqa kama bilaabin, fasax baan galay. anuu fasax ku maqan ayaa la ii yeeray. waxaa ii yeeraya wasiir ku-xigeenkii wasaaraddaasi dalxiiska oo aanan garanayn, horeyna u arag, ayaa ii yeeray. waan u tegey. wasiir ku-xigeenkaasi waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdi gaboose. maalintaa ka hor magaciisana ma maqal, araggiisana ma arag. wuxuu igu yidhi, anaa kuu yeeray, fadhiiso. waan fadhiistay. wuxuu igu yidhi, anugu wasiir ku-xigeenkii baan ahay, halkan ayaa la iisoo magacaabay. horey waxaan u ahaa dhakhtarka madaxweynaha ayaan ahaa. marna waxaan agaasime ka noqday isbitaalkii weynaa ee Digfaar. dabadeed waxaan ku yidhi, waa fahmay, hadda iyo tan maxaad iigu yeertay baan ku yidhi. wuxuu yidhi, waxaan kugu yeeray agaasimaha waxda tababarada iyo shaqaalaha ayaan u yeeray. waxaan ka codsaday inuu ila yimaado qof walbaba doosiyegiisa ama galka shaqaalaha uu leeyahay qofka. marka wuxuu ii keenay wasaaradda istaafka ka shaqeeya, min agaasimin guud ilaa iyo shaqaalaha biintooniga ugu hooseeya. markii agaasimihii baan waxaan ku yidhi, halkaa fadhiiso oo fayl walboon soo qaado magaciisii aan ku weydiiyo iyo aqoontiisii iyo xirfadiisii iyo waaya-aragnimadiisii iyo mas-uuliyaddiisii iyo shakhsiyaddiisii warbixin iga sii qor, nowdna ku qor, wuxuu kaa mudan yahay qofkaasi quality ahaan. intii markuu sameeyey aan wada sameynay aniga agaasimihii ayaa waraaqadihii uu noodka ku qoray baan ka qaaday. waan eegay, waxaa ii soo baxay magacaagii in buundooyinka fiican ee uu bixiyey agaasimkii inaad ka mid tahay. waxaan weydiiyey, waa iyo qofkan xaguu joogaa? ninkan wuxuu igu yidhi, waa nin maaragtay dhalinyaro firfircoon, wax bartay, haddana ku maqan waxbarasho, marduuna maaragtay soo laabtay. markuu intaa yidhi ayaan waxaan idhi u yidhi, waayo ninkan waan u baanahay, bal ii raag. sidaasaan horta kugu yeeray buu yidhi. waxaan ku yidhi, aad baad u mahadsan tahay, warbixintaadii siisay, hase yeeshee su-aal ma ku weydiin karaa? haa buu igu yidhi. waxaan ku yidhi, maxaa intaasoo howla ku geliyey? yacni maxay tahay ujeedadaada? maxaadse ka rabtay ina intaasoo macluumaada aad raadiso? wuxuu yidhi, waxaan rabay inaan istaafkan xukumo aan barto. anugu qof aaminsan baanahay aqoonta, sida daraaddeed ayaan maxaa yidhi u weydiistay agaasimka inuu ii faahfaahiyo baro istaafka. hadda iyo dan, hadda maxaa dana?
waxaan rabaa kilibkan intaynaan ku joojiyo waayo hadduu dheeraado montajka waa adkaanaysaa. marka qaybtii labaad marka wuxuu igu yidhi waxaan rabaa inaan xil kuu magacaabo, mas-uuliyad kuu dhiibo. waxaan ku yidhi anugu haddaan soo galay fasaxana ku jiraa, marka maad sugtid. wuxuu igu yidhi may waan kuu baanahay si degdega. waxaan maxay tahay xilkii mas-uuliyaddaada ii dhiibays. wuxuu igu yidhi hodhal bulsho la yiraahdo naga soo horjeeda ayaan rabaa inaan kuu dhiibo. markuu intaa yidhi waan qoslay. waxaan ku yidhi jalowsir qof aqoon leh, karti leh, ee hufnaan leh baa tahay. waxaanse rabaa inaan kuu dhiibo meel dhimatay, ee urtay, ee bakdiday, ee laga kala yaacay, ee bisadaha ku soo hoyda iyo dadka qamriga la ehela. hodhal bulsho oo meel sidaasa sideed ku damacday inaad anigu ii dhiibtid aduu igu sheegaya qof waayo aragnimadaa le inaan ahay. wuxuu igu yidhi waxaan rabaa inaan arko waxa lagugu sheegay inaad ka soo dhalaali karto, aqoonteeda leeda. horta waxaan ku yidhi walaal, horta aad iyo aada umahadsan tahay xilkaa iyo mas-uuliyaddaasi aad iila garatay, laakiin anigu waxaan ku leeya waa mahadsan tahay, qaban maayo. wuxuu igu yidhi kasoo fikir, waxaanse kuu raacaynayaa buu igu yidhi anugu anoo la socda wafdi madaxweynaha booqanaya isbitaalkii digfer oo uu baaba-ay sida adigu hadda oo dhalkan ku tilmaantay ka daran, bisado ilmaha cuna qaata ee baaba-ay, shansorayaashii shaqaynaynin, liftigii aan shaqaynaynin, wax shaqaynaya aan jirin, istaafkii kala tegay. ayuu yidhi abigabos haweenkan jeer madaxweyne. markaasuu la wareeg isbitaalkan. markaasaan ku yiri jeer madaxweyne ma qaban karo meeshan, aqoonteedii malihii, awoodnu malihii, anugu dhakhtarn baanahay. suu yiri la wareeg waa amar. waxay igu kaliftay inaan oggolaado amarkii madaxweynaha. meeshii waan qabtay, waraabaan soo yeeray, dibaddii iyo gudaha dayactir baan meeshii ku sameeyey, feasibility study baan sameeyey, qalbeyn cusub baan ku sameeyey, dayactir baan sameeyey. isbitaalkii buumi buu noqday, meel fiican buu gaaray. marka waan kaftannay. markuu intaa yidhi waxaan ku yidhi adigu inaa madaxweynaad ahayd, aniguse de maxaan ahay? yani haddaad ii dhiibto anigu meesha dee cidan kala kaashanaya ma jirto. marka wuxuu yidhi anaad igala kaashanaysaa, ina madaxweyne saaxiibkiisi baad noqon. marka waa nin dhalinyaro aada u fiican oo runtii aada u degan, u asluubaysan. anna nin yar baan ahaa markaa waynu isfahamnay. muddo kadibna waan ka oggolaaday, meeshii sidii baan ku qabtay. hase yeeshee wuxuu sameeyey 1 milyan running cost oo loogu talagalay dayactirkii wasaaradda ayuu madaxigeenkeeda soo wareejiyey oo hotel bulsho ku qoray. uu yidhi lacagtaasi
lagu maalgeliyo oo lagu dhaqaajiyo. 1 milyan waagaasi lacag ma ahayn, yacni lacag bay ahayd laakiin 1 milyan meesha kuma filnayn. calay kulli xaal anugu lacagtaa qaban maayo, mas-uulna ka noqon maayaan ku yidhi. usoo magacaabo qof mas-uul ka noqdo oo maamula. wuxuu u magacaabay agaasimihii maaliyadda iyo xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda ka socday. labadaas ayuu u magacaabay in wax allaale wixii baahidayda ah oo hotelka loo baahan yahay aan soo codsado in la sameeyo dayactir, qalabayn, qalabkii kitchenka, qalabkii baararka, qalabkii kuraasta iyo wixii lamid ah. calay kulli xaal anigina marka waxaan sameeyey daraasad. waxaan sameeyey qalab wax lagu sawiro ayaan haystay, video iyo foto ayaan ka sameeyey. istaraatiijiyada meesha uu ku yaalla hotelkan sawiray, taaladii sayidka cabdulle xasan, gurigii ummadda, wasaaraddii dalxiiska, xaggana waddadii warfaafinta aadisay, yacni meel aad u wanaagsan oo qurux badan inuu ku yaalo. marka anigu maxaan sameeyey? waxaan sameeyey daraasadan sameeyey. shaqaalihii baan dib u baaray. waa dhalinyaro, waa hooyooyin, waa odayaal lagu keenay kacaan, inay kacaamin yihiin degmooyinka laga keenay, laguna shaqaaliyey howlkarnimo xisbi. okay, hodhalkan waxaa la dhisay 75 baan malaynaya. marka weligiisii dayactir laguma samayn, korontada iyo nalka iyo biyahana lama bixin, mushaarka shaqaalahana 7 bilood lama bixin. hodhalkana waxaa lagu leeyahay 1,700,000 amaahda ka maqan waa 8,600,000. qalabka yaalla waa duugoobay, kitchenka waa xiran yahay, kafkaga hadli doonaa. kilibyada hadday dheeraadaan dib looma duubi karo, marka halka kiliibkeyga 3aad baan ka wadayaa. marka wasiirkii cabdirashiid baa loosoo magacaabay, cabdirashiid sheekh, maxamed cabdi kaboose, saciid mariino, generaal maxamed cali samatar oo wada socda ayaa waxay igu yimaadeen xafiiskii hotelkii bulsho oo underground ah. maxamed cali samatar baa wuxuu ku yiri, warma ninkaad ii ammaanayseen ayaa bohoshaan dhex fariisiisay. calay kulli xaal haabay yidhaahdeen. annaga awood kale ma lihin, laakiin waxaan muujinaynay ninkan inuu nin quality leeyahay, howlahana uu ka soo bixi karo. anigu markaa luqmaan ahaan hodhal waan ka soo shaqeeyey. hodhalkii Taleex jubba markii gubatay ayaa hodhalkii Taleex lagu dhisay 49 casho. Axmed xasan muuse ayaa loo xil saaray iyo Cumar Jees ayaa lagu dhisay shirkii Pan African markii la qabanayay ahayd 1970. halkaasaan shaqada ka soo bilaabay as assistant receptionist. way arag waan u ahaa, laakiin anigu wasaaradda waxaan ku soo wareegay markii liiga maarmi waayey. tour operatorna waan ahaa, guide touristna waan samayn jiray. wasaaradda waxaan ku soo wareegay 1974.
marka khibraddaasna waan sitay laakiin aniga specialisationayga wuxuu ahaa TM waa tourism management hase yeeshee Kabose iyo Cabdirashiid iyo General Ali Samatar iyo Saciid Marino waxay yidhaahdeen Saciid Marina kuula joogaya shaxdaasi ka wada shaqeeya baahidaada soo muujiya kadibna odaygaan ula tegaynaa arrinkaa waxbaan ka qabanayna okay way iga tageen kadibna xaawaa ii yeertay xaawaan u tegay waxay igu tiri niyow waan kuu istaagayaa qof aqoon leh buu qiimeeyaa waxaan rabaa inaad ila shaqayso duusiyaga waan arkay agaasimayaashii ka waaweynaa oo dhalada waaweynna waxan bay soo qoreen adna aqoontan iyo cilmigaanad soo qortay marka waxaan rabaa inaan noo shaqayno waayahay baan ku yiri calaa kulli xaal hadalkaasoo dhan waxaan idinku sheegaya waxa weeye maxamed cabdi Kabose aad haysataan horey musharax madaxweyne u noqday ood qaadan weydeen uu ka fadhiistay shaqadiisii professionalka dib ugu noqday hadda maalin dhowto waxaan ka maqlayay inuu dib ugu soo noqday siyaasaddii uuna doonayo inuu badbaadiyo waxna u qabto dalkiisa marka waxaan idiin markhaati furayaa inaad haysataan haliyey qaran daacada aqoon leh hufnaan leh oo maamulkiisu noocaas yahay marka waxaan idin leeyahay yuusan idin seegin ka faa'iidaysta intuu nool yahay barwaaqu ku dhawaaqay urur la yidhaah karbaha hala galo gacnaha hala qabto gurmad hala siiyo ninkaasi waxaa xaqiiqa ah Soomaaliya iyo Somalilandba inuu badbaadinayo ninkaasi waxaa xaqiiqa ah inuu noqon karo halyeeyga Afrika ka soo baxay horumar gaarsiin karo waxaa xaqiiqa ah inuu noqon karo Mandeelkii Soomaaliya walaalayaal waan ku dheeraaday warbixinteydan anoo weliba soo gaagaabiyey oo aan bar ka tegay iyadoo aan ii saamaxaynin yacni sistemka montaajka videoga ulajeedadeedii iyo aragtideedii oo dhanna waxay ahayd inaan nalka ku ifiyo maxuu ise Maxamed Cabdi Kabose waa ayo muxuu yahay dhakhtarkan psychologa neurologiga yani qualitygaas leh u dhashay Soomaaliya kana soo jeeda Somaliland u dhashay Somaliland u dhashay Afrika wareeda aan ka faa'iidaysan aad iyo aad ayaad mahadsantihiin dhegeysigaad i dhegeysateen meel kastoo aad dunida ka joogtaan halyeygeena aan dooranayno musharax madaxweyne madaxweyne Somaliland waa Maxamed Cabdi Kabose wabillahi tawfiiq